wasiirka wasaaradda warshadaha Somaliland mudane Shucayb Maxamed Muuse oo waraysi siiyay shabakada wararka ee Wajala News ayaa ka jawaabay hadalla ka soo yeedhay xubne hore uga tirsanaan jiray xusbiga kulmiye qaar ka mid ah sidoo kalena waxa uu ka difaacay eedeymo culus oo loo soo jeediyay gudoomiyaha xusbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweynaha mudane Muuse Biixi Cabdi geesta kalena waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay hadalla ka soo yeedhay dhawaan xusbiga mucaaridka ah ee UCID haddaba isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yiri بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدبان دي السلام يا وبسيتك وجهال نيوز هذه بدل ما تسنتين نمعوي كيس فرح بدله أو إنجلس وتشبي أبارتي كلولاي فرح باس أنتي نوهايسي inuu bedelay nimco iyo roob iyo barwaaqo iyo bashwash guud ahaan inta badan jamhuuriyadda Somaliland waxa ilaahay weydiisanaynaa inuu nimcoda nusqaanteed nimco waliba kullu nusqaan way leedahay marka inuu ilaahay nimcada uu noo shubay nusqaanteeda inaga ilaaliyo iyo ilaahay weydiisanaynaa taasi waa qodobka ugu horeeya qodobka labaad waxa weeye waxaad arkaysay bariyahanba iyadoo ay TV-yada iyo website-yada iyo meelaha baraha dadku ku xiriiraan ee Facebook-yada aad ay uga socoto arrimo aad iyo aad runtii oo aan qurux badnayn fact hadday tahay siyaasadda xisbiyada iyo ismaagis fara badan iyo dhaliilo badan oo aan qof aan qabin loo jeediyay iyo maaragtay hooyooyinka wax laga sheego oo maaragtay dee wixii dhowrsoonaanta iyo qof walba dee hooyo iyo walaal guulay runtii marka waxyaabo fara badan oo la kala lahaan jiray baad arkaysaa inay isku wada dhex yaaceen waxa kaloo arkaysaa dad aan shaqadoodiiba ka hadlaynay shaqo kale ka hadlay dad iska shacab oo meelaha jooga oo hadday hudheer tahay hadday meherado kala hayba hadday meherado haysta oo aan xisbiga kulmiye iyo dowladda dee aan ku jirin oo haddana ka hadlayo farta lulayo oo dhici mayso waxaas oo fara badan baa runtii ka jira waddanka waxaan laba qodob ka odhanayaa hadal shalay ka soo yeedhay qoladii meesha ka yaacday ee maaragtay xuseen caydiid iyo ka mid ahaa xuseen axmed caydiid iyo tiimkii ka midka ahaa intan aadka u hadalhaya arrinkan guddiga fulinta ee xisbiguna dee way go-aan bay soo saareen ay arrinkaa kaga hadlayaan ama ay go-aan ciqaabeed ay ka soo saareen waxaan arkay markaa dee xisbigu shuruuc buu leeyahay dastuur buu leeyahay nidaam iyo kala dambeyn buu leeyahay waxaan la yaabanahay shirkaa jaraa'id ee shalay uu qabtay wasiirkii hore cadaaladda oo uu kaga hadlayay in uu lahaa nin baa leh fikirkaygu hadduu socon waayo wax alla wax soconaya ma jiraan taasi cidday ku caddahay runtii waa isaga iyo cidda la fikirka ah oo 370 xubnood oo golaha dhexe ah oo isugu yimid Mansour Hotel oo ay iyagu ku yihiin tiro fara ku tirisa ama 10 qof waxaan gaadhin ay ahaayeen inuu yiri sidaan doonay hadday u socon weydo dowladda baa burburinaya runtii dadku ma ilaawin duhur cad bay ahayd wixii aad islahayd qarankan iyo hagridaamadiisa ka shaqee duhur cad intaasoo qof intaasoo wasiir iskugu tagteen aad banayseen meesha ujeedadeedu ma ahayn arrin xisbi iyo arrin yaroo soke iyo arrin maaragtay meelaan dhow ma ahayn dadkuna way garanayaan wayna fahansan yihiin ujeedada hawsha aad ka lahayd waxay ahayd xuseenow inaad Somaliland jilbaha u dhigteen way inaba wax caadiya ma ahayn laakiin ummadan iyo dalkan tacab badan iyo nafsimaal badan oo helay awgeed ayuu ilaahay wax badan ugu soo celiyay wax badan ku ilaaliyay iyo shacabka Somaliland oo ka dhareegsan inaan maanta qarankan iyo nidaamkan jira ee dawladnimadu qof iyo 2 iyo 3 toban aan waxba noqon karin iyadoo taasi jirtay oo aan inaba maaragtay waxba la iska weydiinin haddana maanta isagii wax aadeeyo dee waa arrin ceeb oo mushkilada weyn qofku hadduu ismaqli waayana waa mushkilad inteeda leh arrintaa shirqoolka ahayd ee duhurka cad ka yaaceen xukuumadda isaga iyo cidda la fikirka ah ayaa waxay
haddana caadaysteen oo isagu caadaystay isagoo afhayeenka sheeganaya qolada magaca oo la baxday uu sheegaya shirkiisa jiraad shalay ku sheegay isagoo moodo inuu aad u kulul yahay xuseen shalay oo weli isagoo saa hadlayaba runtii aan arag waxaan la weydiinayaa su-aashu ay tahay waxa weeye dadku way garanayaan waxaana ka sheekeynayso dadkana caqligooda hacaay inay sax tahay iyo inay qalad tahay iyo inaad adigu qaldan tahay iyo inay cid kale qalan tahay dadku si fiican bay u saari karayaan runtii miisaanka u saari karayaan haddii aanad adigu khaldanayn ama fikirkaagu aanu adigu kugu koobnayn dee wixii golaha dhexe halkaa isugu yimida ka dhacay ninna lama khasbin iskumana yimaadeen murashax baa la doortay murashax madaxweyne ku-xigeen baa la doortay murashax madaxweynea la doortay go-aano xisbi baa kasoo baxay guddoomiye gola dhexaa la doortay ku-xigeenkiisi baa la doortay xogeyaha golaha dhexaa la doortay intuba waa waxay kasoo baxeen shirkii golaha dhexe xisbiga kulmiye ku qabsaday hotelka mansoor majority-ga dee la raaca haddii lagaa bato maaragtay siyaasaduna marna waad adkaanaysaa marna waa laga adkaanaya haddaad laakiin markay adiga maaragtay kula toosan tahay inaad wax jiirsiiso markay kaasoo horjeedsatay ee aragtidaadii la qaadan waaya inaad tidhaahdo waddankaan burburinayaa dee taasaad ka shaqaysay oo suurogeli weydi inqilaab samey baad is tiri oo dawladda waxa jilbaha horid baad is tiri intuu way ku socon waaya waaye tamaanta taagan adigoo sheegan inaad xisbigii kulmiye ka mid tahay oo waawaan lagugu keli waayo oo intaasoo bilood iyo intaasoo maaragtay aada xisbiye kaleba heshiis la gashay oo dadkan nimankan aad sheegaysaa ay u ololeeyeen xisbiyada mucaaradka waqtiyadii diiwaangelinta lagu jiray dhinaca waqtiyadii diiwaangelinta lagu jiray dhinaca gobollada bariga waxaan la weydiinaya waxa weeye bal wax sharciga kuu fasaxaya adigoo xisbi muxaafid sheeganaya inaad wada hadal la furan karto xisbi mucaarid ah oo dawladda mucaarid ku ah oo xisbiga muxaafidka mucaarid ku ah halkeed ka keenta adigu taa oo dawladda isla toosantood leedahay sax baan ku nahay dadka waa inaad qancisaa ood u sheegtaa qodobka kuu fasaxay inaad xisbi mucaarid ah wada hadal la furan karto adigoon hogaankii xisbiga ahayn adigoon muxuu ahaa guddoomiye xisbiga ahayn adigoon afhayeenkii xisbiga ahayn adigoon xogayihii guud ahayn bal halkaan cid wada hadal kula fulan karayso dee qodobka kuu fasaxaya inaad dadka u sharxdaabe taasi waa qodobka kale guddiga fulinta go-aanka ay gaadheen ee haddii uu yahay ciqaabta ka dhalanayso qofku waxyaabaha uu kaga baxayo xubinnimada isagoo dhinta isagoo maaragtay iscasila isagoo xanuunsada isagoo ciqaab maaragtay xeer ciqaabeed muta oo guddiga xisbiga ee fulinta iyo cidda uu xeerku siinaya ay go-aanka gaadhaan markay sidaa tahay runtii waxa wanaagsan wax walba in wada hadal lagu dhameeyo in fara badan waxaad ku kacaysay waxyaaba fara badan oo lidi ku ah xisbiga muxaafidka kulmiye iyo jiritaankiisa intaba haddana waxaad leedahay khasab baan kaga tirsanaanaya ayaan ku joogaya waxaan xasuustay riwaayaddii magaceedu ma garanayay maaragtay gabadhii ninkeeda ku tiri fur waari fur ee ku balaaya kuma haysa iska joog oo caruurtaada hayso oo gurigaaga ilaasho wax allaaliyo wax ku hayaa ma jiraan iska joog buu ku jiro gabadhii waxay go-aan ku gaadhay oo ku joogi weyday in ninkaasi furo markii uu furayna waxaa tiri ima furi kartid maadaa ku dhacabay ku tiri markaa xuseen arigiisi waa ima furi kartid horta waxaan leeyahay markaa qiilashuru way iska bannaan yihiin bal sidaad dee ugu soo noqon lahayd sidaad dembigan uga noqon lahayd sidaad wax walba faraha uga qaadi lahayd sidaad raaligelin u bixin lahayd dee aday ku taalan taas laakiin go-aankaa xisbigu gaadhay annagu waan taageersannahay waana go-aan dee guddi fulineed ka soo baxay xisbiguna hagirdaamo uma baahnay hiil buu u baahan yahay murashaxna uu leeyahy hadday kula tahay wixii golaha dhexe halkaa ku gaadhay baa dib loo celinayaa oo ra'yigaaga keliya dib loogu noqonaya dee habeen qof jiri maayo calaa cashar qof waliba u garanayaa inaanu suurogelin dadkuna waxaan inaanu suurogelin way garanayaan waxay leeyihin war waxaan uu ku hadlaya odag waa bal markaa wakti siyaasadaadu shaqaynayso oo lagu dhegeysan karayo iyo wakti aanay siyaasadaadu shaqaynayn oo lagu dhegeysan karayn baa jira intuu waktigu kuu soo noqonaya iska sugo
bisinka qabso oo iska nafiso shaydaanka iska naaro dib u fadhiiso oo masayrkan dee cid baa lahayd oo lagu yaqaanay waxaanoo masayra iyo waxaanoo iska jooji. dhinaca kale waxaad sheegtay in guddoomiyaha xisbigu uu burburiyey ama faraha la galay ucid. wuu ka jawaabay xisbiga wuxuu ihi shaqo kuma lihin. meeluu guddoomiyaha xisbigu dee ucid kaga mid yahay iyo meeluu tale kaga dhiibtay iyo midna ma jirto oo yihi xisbigaha la burburiyey umana taalo. khilaafka ucidna ucid buu yaalla, iyagu waxa dhamaysteen wixii dhexdooda iyagu wadahadal iyo waa xisbi qaran runtii looma baahna inuu burburo, laakiin iyagu dhexdooda ha ka dhamaystaan ha ka heshiiyaan. wax murashaxa madaxweynaha mujaahidka lagula galgalan karayana runtii maaha. saldalada suweerwa ee aada soo qaaday waa arrin qoys, waa arrin qoys weyn. ninkan aad sheegaysa deeda saldalad buu weeraray iyo ninkan la weeraray ee muxuu ahaa in la weeraray aad ku sheegaysa suldaanku waa dad qoysa oo aan loo kala sheekayn karin weyn. iyagoo beri wada socdaa la arki, iyagoo heshiin karaa la arki, shalay wada socdeen. waa dad un aragti iyo maaragti qoyso oo aan qoyskana looma kala sheekeeyo. qofka qoyska dhex galaano ku dawaqaabo. marka arrintaa qoyska ee saldalada iyo waxana iyadana iska daabaan ka odhan lahaa. taa cidna dee waa tu xisbiga dhexdiisa u taalla cid guddoomiyaha xisbiga oo aad leedahay ninkaasaa idin soo feedhanaya somaliland uu hor yaallaayo iyaduna way garanaysaa, isna uu garanaya. waxaan filayaa saaxadda siyaasadda ee maanta tartanku ka dhici doona insha allah anigu ma aaminsanay markii dee indhaha caafimaadka qaba ay wax arkayaan in muuse lagula tartami karo uu codadka ugu badan isagu ku hogaamin karaa. anigu aaminsanay waayo halganka iyo dib xoreynta waddanka iyo waxyaaba fara badan ha ahaato waxa qofka lagu dooran karaa hogaamiyaha waa 3 qodob. 3daasi waxa weeye waa shalay iyo maanta iyo beritoole. qofkan taariikhdiisu shalay maxay ahayd, maanta muxuu yahay, beritoole maxaa laga fili karaa. waxaa la aaminsan yahay oo shacbiga somaliland garanaya uu ka dharagsan yahay in muuse yahay shalay nin usoo halgamay waddanka, mujaahida, waktigiisa usoo huray, meelaha la tegay dadku u yaaceen, dadkii maaragtay qaxootiyada ha u yaaceen, dadkeeni meel walba ay tegeen ma tegi garan waayo runti ee uu wuxuu ku talagalay inuu u dhinto ciiddiisa ama uu xoreeyo. dadkii damiirkaa lahay waktigaa arrintaa ka dhiidhiyeena oo ugu horeeyo madaxweynaha qaranka soomaaliya axmed maxamed maxamuud silaani ammaan bil mudayn. taasi waa shalay. waxaa kaloo shalaya dib u dhiskii waddanka iyo dib u habeyntii iyo muxuu ahaa shirarkii ka dhacay waddanka, hadday kii balligooda tahay, hadday kii maxaa burcad tahay, hadday kii intiiba waa waaye arag u taagnaa halgankii ilaa maanta somaliland wixii ka dhacay. nin shalay yimid maaha markii waddanku xoloobay ee waddanku barwaaqada noqday. beritoole maxaa laga filaya waa khabiir, maadaama oo uu yahay nin ku farsan ama garanayo waxaa lagu soo dhaqmay, wixii loo soo halgamay, qiimaha waddanku leeyahay, macnii nabadeyntii jarataradii lasoo maray, intaasoo dhan shayda ka eegayay. wuxuu soo kordhin karaa berri waxa weeye waa wax uu garan karayo, meesha uu ka weecan karayo, meeshaana uu garan karayo. marka taasina wax dadka laga majar habaabin karaya maaha. gabagabadii waxaan kusoo gabagabeynayaa waddanku wuxuu u baahan yahay runtii in la wada ilaaliyo, laga wada maaragtay lixajecladu inaga wada dhexayso, yoonyoontanka iyo waxyaabaha yare maaragtay gudaheennana aanay dibadda gaadhin. ciddii u baahan wax tabasho ina de inay wada hadal, miiska wada hadalku mar walba furan yahay, inay wada hadal ku dhameeyaan ayaa iyadana muhiima. laakiin qof kasta oo wada qaldan marays idhaahdaa dee waajibaadkeedu helaya iyo abaalmarinteeda. qof lagu laaluushayaana ma jiro. waddada saxdaasina way muuqataa, waddada khaldanna way muuqataa, labadu way isgarab socdaan. qofkii taa qaldan maraa dee qalad buu maray, qofkii taa saxdaa maraana horuu soconaya. marka aray ugu go-daayo laba garab baan u kala fadhinaayo, laba garabna looma kala fadhiye xisbigii iyo murashixii iyo murashax ku-xigeenkii iyo xisbigii iyo bahweyntii kulmiye taageerayaashiiba meel bay yihiin. waxba markaa ka daayo waxa weeye arrinkaas xalay wuxuu eegaa waxaan isbalaha odayaashu shaabadaa bay samaysteen oo xafiisyaaba yeesheenoo
magaca xisbiga cod kala dhiilgareeya ma islahaayeen iyagoo og inaanay sharci ahayn waxaas marka aad iyo aad baad cabdiqaadir habane shabakada wararka ee Wajala News magaalada Hargeysa.